gender ma taqaanin genderku luqa ahaan waa wax sagas ku dhadhow lab iyo dhadig laakiin ma aha socially markay inoo fasirayaan iyagu say u sharxayaan waxay leeyihin ninnimadu iyo gabadhnimadu waa dowr ijtimaaciya waa wax qofku uu matale wuxuu u dhasho maaha gabadhan biologically aynu inagu gabadha u naqaanaa gabadh maaha ninkan aynu nin u naqaanaana nin maaha shaqadu bulshada ka qabtun bay ku xidhantay gabadhuna nin bay noqon kartaa ninkuna gabadh buu noqon karaa waxay ama qaanuun ka dhigayaan ama tadwiil la dowladaynaya United Nations intuu qaato la odhanayaa dunida hoos timaada ee memberka ka ahi waa inay fulisaa waa qaanuuna United Nations ka soo baxay afkaar waa taswiiq lil afkaar baa la faafinaya oo waxa soo mu'tamar inta loo qabto lacaga lagu bixinaya la wadaya afkaar iyadoo la faafinayo mustalahaadka dadku ay jecel yihiin baa lagu isticmaalaa xuquuqda rag xuquuqda dumarka xuquuqda caruur ma qof bini aadam xuquuqdiisa diidan ba jira intii lagu dhaha xuquuqda dumarka de waxa tilada waa wax fiican saacada maaha laakiin xuquuqda la sheegaya wax weeyaan suuqeeda way inay geli kartaa sagaska cid ay doonto waa inay la sameyn kartaa sharci ma kuma xidhna qaanuunku in guur kuma xidhna sagasku guur iyo guur la'aan waa la sameyn karaa family-gu wada deganaan karaa family maxaa loo yaqaanaa nin iyo gabadh isqaba oo sharci la isugu meheriyay wuxuu doonaba sharcigu ahaadee waxa kaloo loo yaqaanaa bay nin iyo gabadh wada degan meher bay u dhicine waxa loo yaqaanaa laba nin oo wada degan oo la isu meheriyay hadaba laba nin waxa loo yaqaanaa laba nin oo la isu meherine wada degan bay ku leeyihiin waxa loo yaqaanaa laba dumar oo la isu meheriyay laba dumar oo aan la isu meherin ilaa 12 qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa wasiiqada United Nations iyo qoyska maxaa qoysa adu marka aad maqasho usradaha la horumariyo waxaad soranaysaa dee reerihii baa wax loo qabanaya oo familieskii iyo qoysaskii baa la wadaa laakiin qoyska uu sitaa waa qoys nooca kana markaad maqasho xuquuqda dumarka waxaad leedahay xuquuq dumar baa laga hadlaya laba mid oo aqliga bini aadamka gali kara hoosta laga soo gelinaya guurka maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxay sheegi jireen waxay fircooniga gudniinka fircooniga hal joojiyaad meelaha ku arkaysa dabeetana konton kalena waa la sharxaya idan waa litazyiin waa la qurxinaya waxa kan hay'adkan United Nations ee meesha jooga iyo kuwan kale tirada badan ee meesha jooga waxay bixiyaan projects mostly projects kaasi maaha wax development ku saabsan wax ummadda wax taran maaha qofka qaadanaya hungurigu isagu uga dan leeyahay 5,000 10,000 waxbaa lagu soo siinaya shir yar baad qabanaysaa capacity building iyo beena kaloo la sheegay iyo waxaasaa loo xuquuqda dumarka laga warramaya ama gaal yar baa imanaya ama mid yar oo Afrikaan baa imanaya waxoogaa la jira jeedinaya waxa kan waa laaca la isu dhigo markaad wax dhabanaysa maxaa la sameeyaa qofka raba baadiye inuu ugaadhda soo dabtaa muxuu sameeyaa haddaanad laac dhigin laac waa waxaan loo dhigay dee dabinka ma soo doonanayso sabab ku kalifaysa inay dabinka u timaada waa inuu jiraa waxaana waa laac la dhigayo laakiin afkaaro badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dawladuhu waxay bixiyaan hal odhanaya dawladdaasi xuquuqda bini aadamka ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dawladaha waaweyn bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leedii waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jira bay dhahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kale oo dhan ay mutakhalifiin ka yihiin Ari Huckman ayaa wuxuu ka khudbadaynayaa nadwo lagu qabtay Mexico marka wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay tiradan badatay ee furitaanka talaaqi dunida wuu batay buu leeyahay waxa kaloo batay buu yidhi carruurta sharci darrada ku dhalata ee aan guur lagu dhalin labadaaba waxaan u arkayaa buu leeyahay guul xuquuqda bini aadamku ay gaadhay inay tahay weligaa ma maqashay waxa ay dhahaa in la isfuro iyo carruur garacye inay dhalato wuxuu ku tirinaya inay tahay yucaddu nasran kabiiran lixuquuqi linsaan cala albatrarakiya
patriarchigu waa maxay waa mujtamaca ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaabaa laga baxay buu leeyahay laga xoroobay oo dumarkii iyo carruurtii baa ka xoroobay marka sharci darrana waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad Annie Foster daraasa uu sameeyey waa Maraykan wuxuu leeyahay war wax la yidhaahdo nin iyo gabadhi dunida hadda kama jiraane 5 nooc oo bini aadama baa hadda jira buu leeyahay waa kuwii ragga berigii hore la odhan jiray qoladii dumarka berigii hore la odhan jiray ragga cusub ragga kora dumarka cusub dumarka kora iyo rag iyo dumarka la isku bedelo kuwan ay biologically intay qalaan ay bedelaan markaas yani nin baa la qalaya hormoona lagu mudaya naasa loo sameynaya mahbal sanaaciya loo sameynaya waa la gabadhaynaya isagoo gabadhu markaa noolaanaya ficlan ma u malaynaysaa midkaasi intuu soo islaamo diinta dib ka fahmay in la garan waayo safka masaajidka xagga lagu dari doono xagga dumarka la geey xagga ragga la geey